fariinta waxay ku socotaa gabdhaha doonaya inay guursadaan oo waliba doonaya inay helaan guur farxad leh iyo nin wanaagsan. wax ma maqlaysaa? 2 maalin ninka caawi waa 2 maalin oo kaliya, just 2 days caawi ninka noloshaada oo dhan buu ku caawinayaa. hameen ku celiyaa ninka waxaan ku yiri 2 maalin kaliya caawi adigu 2 maalin kaliya ninka caawi noloshaada oo dhan wuu ku caawinayaa ninkan adiga iska leh. miyaan ku sheegaa haye falowda hal dhingad ku dhufo soo dhangadeeya falowda iyo loofta soo dhangadeeya. maalinta koowaad waa maalinka ninkani uu haasaawe ama sheeko kuula yimaado. waxaan rabaa inaad caqligaaga isticmaasho oo aad kala saarto. insha Allah video soo socdaan kaga hadli doona si ku ogaan doontaa ninka daacadda, ninka guurka ka raba, ninka luuqluuqyada igaro insha Allah. laakiin waxaan rabaa inaad kala saarto ninka hadduu kuula muuqdo nin macquul ah, mustaqbal raba, wanaag u socda, saqajaan oo dhan ma rabo, nin ku ciyaaraya ma rabo, nin luuqluuq doonaya ma rabo, ka iska cayri. laakiin ninkaad u aragto nin mas'uul ah that day soo dhaweey. maalinta labaad ee ugu muhiimsan waxay tahay waa maalintu ninkani ku guursanayo. maalinta uu ninkani ku aroosayo waa maalinta uu kuugu baahi badan yahay, waa maalinta uu ninkan ugu jilicsan yahay. sideeda waqti la yiraahdo ninku baa la yiri 2 maalin buu qarqaraa, 2 maalin buu gariiraa, saas oo kale kurbada. maalintu dhasho oo uurka hooyadii ka soo baxo iyo maalintu guursanayo ama waxaan la gariirin ba qoodhin iyo xiradin. adiga waa iska waxa kaliya adiga un ba diyaar baan hay kaliya kugu filan. saaluunka gee hal qurxiyo nin kale ma noola. hadda ma garatay inta mas'uuliyad buu qaadaya, tol buu la xididaya, odayaashii baa u baahan qanciyo, hooyooyinkii buu qancinaya, dhalinyaradii baa u baahan la qanciyo. arooski qarashkiisa too much, aqalkiiba too much. maxaa haddana sheek mar kasto wax kasto aad ku xisaabtanto wuu la jibaarmaya. qarashka aad ugu talagashay xafladda waa waxba soo kordhaya. markaasa xagga markaasa jeeb kulayl, markaasa naxdin, markaasa kadeed, markaasa dayn raadi, markaasa dadka ku cabaad. ninku maalintu ugu jilicsan yahay ee uu kuugu baahan weyn yahay horta waa maalinta ninka dad caawiso, ninka adaaba iska leba see ku caawinaysa. marka 2 mid kaliya ku caawinaysa, 2 mid kaliya. marka koowaad intaan guur iyo hawshaba la gelin miiska soo saadhe maxaad haysaa dhaniyo waxa uu hayo ama qarashka uu hayo hadduusan ku filnayn markaas ee guurka rabto iyo arooska rabto iyo hawdus ku filnayn halu geyn walaalo iska waa fasaxan tahay dheh ama soo diyaar garow dheh iska fasax. waa dadnimo. qolobka labaad aad ku caawinayso waxay tahay maalintu ninkani ay hawsha galo ha isbedeli. gabdhuhu maxay u badan yihiin kama hadlayo gabardee maskax badan oo caqli badan oo balaayo ah oo birta calashitay kama hadlayo. gabdhuhu say u badan yihiin waad aragtay maalintaas way isbedelaysaa. xaliimooyin baa u soo sheekaynaya naheedhe ninkan hadduu kugu cusub yahay meel iska saar. naheedhe hiblaayo miyaad arkay arooskeeda hotel hebel baa la geeyayo hebelna waa lagu casuumay, hebelna waa la keenay, wax hebel hadiyad noocaana waa la keenay. ninka iska xaliimooyinkan kuma caawinayaan. ninka aad nolosha ku midowdeen ee aad doonayso nolosha inta ka dhiman haddii Ilaahay cimri idin siiyo 50 sano, 60 sano, 70 sano aad wada joogaysaan waa qofka kan. ninka maalinta hagaajiso ha isbedelin. gabadhu way isbedelaysaa tiiba maba haba xujo kadeed aqligee ku siinaya arooska ninkii aad arooska wadnaha ku dhufatay. arooska markii laga baxo inuu ku caloor xaarnaado, inuu maxaan ku raahdaa ku gacan furnaado, inuu niyada ku furo, inuu iska kaasiyo bahasha kugu daldalo, inuu biilka ku haga, inuu shopping, inuu jawaab xagee ka filaysaa. hal maalin buu ninkan ku baahnaa wadnahaad ku dhufatay. see doonaysaa noloshaada oo dhan inuu ninkan ku wanaagsanaado, ku aqli finado inuu ma shaqeynayso. 2 jeer ninka caawi, 2 maalmood ninka caawi. hadduu in yarbo caqliga ku jiro noloshiisa kuma ilaawayo wuuna ku gacan furnaanaya. war waa mahadsantihiin. waa inoo video kale soo dhangadeeya looftiyo falowga iyo sheerta dhangadeeya.